سلطان علي وقاضي دونو arrimaha bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Fasaroos iyo xaaladda sida hadda tahay asaga xogaal oo wax badan ka og Suudaan soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qofka qofna dhegeysanaya caawa dadka dhegahooda u doonaan waa ninkii la odhan jiray cali dhaanto halkan caawa suldaan iyo guddoomiye iyo wax ka shaqaynaya maa ninkaa inaa aragtaan inaadan dhawooweyn oo arkaya laakiin kelmad iyo ogolaan aniga calaa fursa mar haddii mikrofoonka la ii dhiibay waxaan rabaa inaan kelmad ka idhaahdo oo keliya walaalkeen maxamed xuseen oo diyaariyey barnaamijkan quruxda badan organizationka la yidhaahdo waamo waa uga mahadcelinaynaa annagoo reer Stroosa waxaan leenahay maxamed xuseen iyo tiimkiisu shaqo fiican ayaa qabateen dadka halkan degan oo Soomaalida ah oo aad afkoodii ku hadlaysaan oo aad magacooda ku hadlaysaanna waxay idinkaga baahan yihiin in dhaqankoodii dib loogu abaabulo waxa caawa hortayda fadhiya qof 20 iyo dhowr sano jira oo Soomaaliya oo aan xeero iyo fandhaal aqoon ayaa daraytahay saasina marka arrintaas inaan ka gudubno oo aad toddobaadkii dhaqanka Soomaalida aad noo samaysaan oo ay carruurtu bartaan dhaqanka Soomaalida dadka Soomaalida ay halkan la yimaadeen waxaa loo yimid qalab kale iyo adeeg kale iyo howlo kale halkan loo yimid ayaguna waa lagu sii darmaya waxaan maranayaa Fasaroos 17 bisha haddaan khaldanay waxaa ka jira dhaqanka soo dadka Soomaaliyeed maxay la hortagayaan reer Fasaroos oo dhan haysana shay miyaan haysana hal shay waxaan idin rajaynayaa ciid wanaagsan iyo inaad dhaqankiina soo nooleydaan iyadoo lala shaqeeyo walaalkeen maxamed xuseen waxaa dhegihiin ay caawa la sugayaan waa ninkii la odhan jira cali dhaanto iyo cali dhaanto soo dhacsada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah hadeertaana waxa uu martida qaaska ee caawa joogto Elizabeth Onen welcome Jag heter Elisabeth Onen och är kommunalpolitiker för Moderaterna i Västerås. magacayga waxaa la yidhaahdaa Elizabeth Onen waxaan ahay gabadh siyaasiyada oo ka tirsan maamulka magaalada Västerås. I Västerås så kan jag alla bli politiker och själv är jag byggnadsingenjör och har också studerat på Mälardalens högskola och har läst sociologi och har en magister i sociologi. Och sen ett antal år tillbaka så har jag förmånen att få jobba på heltid med politik och kommunalpolitik för Moderaterna. isla markaana isku daya inay ka qayb qaataan hawlaha siyaasadda. Och jag representerar då Moderaterna och Moderaterna är ett parti som jobbar för att vi ska få en bättre skola med bättre resultat så att alla kan klara av att gå ut skolan och kunna få ett jobb efteråt. Anagu waxaanu nahay xisbiga moderaadka. Xisbiga moderaadku wuxuu leeyahay siyaasado u gaar ah. Siyaasadaha u gaarka ka mid ah in waxbarashada kor loo qaado, in tayada iskuulada la wanaajiyo, si ay dhalinyaradu shaqo u helaan. Det är viktigt att vi alla kan få möjligheten att få ett jobb och kan styra vår egen framtid och kan välja hur vi vill ha våra liv framöver. Och då är det viktigt att man har utbildning men att man också kan få ett arbete efter det. Muhiimaddu waxay tahay idinka waxaad tihiin dad dhalinyaro ah, waxaad tihiin ubaxii soo kacay. Ujeedadu waxaa weeye inaad wax barataan. Marka aad wax barataanna inaad shaqooyin heshaan si markaasi aad u heshaan mustaqbal wanaagsan. En av våra stora utmaningar
lyssnat på kanske det är drabbade av, det är problemen med att få fram bostäder. Och vi måste snabbt se till att det blir fler bostäder i Västerås så man faktiskt får en möjlighet att få sin första bostad samtidigt som man också får sitt första jobb. مشكلتها ugu badan hadda haysta waqtigan xaadirka ah magaalada Västerås waxa weeyaan guryo la'aan guryihii oo dadka ciriiri ku noqday dadka oo safka u gala maaragtay guryaha xilliya qaadeen marka hadda waxaan ka shaqaynaynaa in guryo badan la dhiso si dadku ay u helaan guryo wacan oo wanaagsan oo ay ku noolaan karaan. Ska vi lyckas så måste vi ha ordning i ekonomin, vi måste ha en tillväxt i Sverige så att vi allihopa kan få de förmåner och de förutsättningar som vi behöver för framtiden. Och då gäller det att se till att vi tar ansvar för ekonomin och se till att vi har en tillväxt. marka sidaas loo helo marka dadku ay helaan guryo waxbarasho shaqo markaas dadku waxay dhammaan qaadeen nolol wanaagsan oo wacan oo mustaqbal badbaadaya marka si aan taa u sameynana waxaan ka shaqaynaynaa had iyo jeer inaan horumarino oo aan daboolo baahida kala duwan ee ka jirta Västerås. Vi moderater arbetar också mycket för att vi ska öka tryggheten i Västerås. Det är viktigt att alla av oss kan vara trygga när vi rör oss omkring i staden och känna att det här är våra gemensamma stad som vi tillsammans utvecklar och det är trygga och det är snyggt och tryggt i hela Västerås. waxyaabaha kale ee xisbiga madaxda uu xoog saaro waxaa ka mid ah inay dadku nabadgelyo helaan inay nabadgelyo ku seexdaan nabadgelyona ku soo toosaan si taa loo helana waxaanu ka shaqaynaynaa dadkii amniga sugi lahaa inay dadku nolol wanaagsan helaan nabad iyo raxan ay ku noolaadaan. Vi moderater tror också att alla människor kan och har möjlighet och har en kapacitet. Och vi tror att man genom att hjälpa till och stödja den här viljan som alla har och möjligheter som alla har så kommer vi kunna välja vilken framtid vi vill ha, kunna välja hur vi vill föra våra liv i framtiden. marka annaga ka xisbi ahaan xisbiga madaxda waxaanu ka shaqeynaa in dadku ay helaan fursado wanaagsan inay dadku dooran karayaan shaqooyinka in dadku ay yeelan karayaan khiyaar kala duwan taasna waa ka shaqeynaynaa. Det var lite kort om Moderaterna och lokalpolitik i Västerås. Jag kommer att vara kvar här ett tag och om det är någon som är intresserad av att veta lite mer så har jag med mig lite program. Ni får också gärna kontakta mig så ska ni få uppgifter. Så om ni känner för att bli politiker så är ni hjärtligt välkomna att höra av er till mig. Jag kommer i alla fall vara kvar ungefär en timme till. marka aniga maadaama aan gabar siyaasiyada dadkan ay yihiin dadkii aan doorashada ka rabay codka ka rabay waxaan diyaar u ahay inaan idala kulmo inaan ay hadda saacadas idala sii joogi doonaa iyo inaada su'aale weydiiya ila soo xidhiidha xisbigayga ku soo biira dhawayntaas. hadda waxaa joogo siyaasigeena Soomaaliyeed Xamse oo asagana ka hadli doono xiriirka ka dhexeeya ururada dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed ee gobolka. Xamse soo dhow. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. waa maalin farxad leh aad baan u faraxsan inaan imaado anigu wax siyaasad ku saabsan maayo farxadda inala qaybsanayaa horta marka waxaan odayaasha gabdhaha hooyooyinka iyo dhalinyarada halkan isugu timid waxaa kaloo joogaa caawa fanka qaybta fanka aniga lafteedu dhalinyarta cuslaatay baan ahay fanka waan caawa ciyaarayaa DJ Swear baa jooga dhaanta uu jooga aad baan u hambaleynayaa fanaaniintana caawa la isku yimi taasi waa taa ummad dhaqan la baynu ahayn ummadda Soomaalida qofka Soomaaliga waxa lagu yaqaanay culture-ka lagu yaqaanay iyo ciyaarta iyo dhaqanka lagu yaqaanay waan ku hambaleynayaa inaynu 20 sano kadib Västerås dhaqankii Soomaaliyeed caawa la soo nooleeyay hambaliyo waa ka jabkeeni waxaan doonayaa dhalinyarada ku ekaanaya caawa waqtigu dhalinyarada Soomaaliga waxa ka soo horjeeda waalidiinta aan ka midka ahay ee inta dunida waxba ka garan waayeen idinkay dheereeyeen waa ka soo horjeeda dahabaatiin idinka oo qabsaday iftiinka quran loo muuqdaati markaan airportka imika markaan Stockholm ka dhoofiyo gabar Soomaaliyeed baa baasaboorka iga sheegaraysaa waxaan doonaynaa annagana dhageysan baan doonayaa ee aad dhageysataan kuwa idinka soo horeeyay iyo halkan ku koray in muu faaraxo kala higsa idin noqdaan doonaya
inaad adduunyada wax la qabsataan baan doonayaa in annagu waan ku saaqidnay dadka waaweyn boqolkiiba 8 qurbaha way ku saaqideen intiina wanaagsan lama sheego qaar bayna dhalinyartiiba ku xumaatay qurbaha kumeeda xumaan dahabaatihi haddii qoomiyad kale ay ku dhici lahayd waxaan inagu dhacay sida may ahaateen meel kasta oo tagtaan dhakhaatiir baynu leenahay mutacalimiin baa tihiin iftiinka ummadda soomaaliyeed u baxaya mustaqbalka waa idinka waa inaad ogaataan qof kasta oo ambassador baad Soomaali u tahay maanta haddaad wanaag samayso wanaagaas uu buuqanaya waan idhaahday qabyaalada annagana baabiisana nadiifa ka tihiin Snapchat-kina arkaayo waxaad tiraahdaa ma ka shidan tahay intaasaa tiraahdaa waa nadiif baa tihiin wax kaloo aad ka hadashaan hadda ma ka shidan tahay mooyaane ma jirto marka dadkaa ku fikiraya hadda ma ka shidan tahay ayaa Soomaali wax u qaban karaa oo horumarin karaa waan idinku hambalyeynaya waxaan doonayaa in dhalinyarta maanta kalidii sameeyaha shaqo joogto ahaato dhaqan baynu leenahay waxaan kaloo doonayaa in siyaasadda aad soo gashaan haddayna siyaasadda soo gelin annagu dirqi bay nagu tahay waanu daba cararaynaa adkaysi badan bay u baahan tahay khayrkiin baa iswiina ka tali baarlamaanka iswiinayna Soomaaliya fadhiya siyaasadda fursad baa leedahay haddaydaan siyaasadda gelin haddaydaan biskuut go'aangaadayaasha waddankan aydaan noqon meel gaadhimayno waxaan idinka doonayaa inaynu inteena wanaagsan soo saarno waalidiinta intii hadda joogtaa isgaadhsiiyaan dhalinyarada dhaliisha faraha badanaad samaysan waxba idinkaa maskaxda ka dila dhalinyartan wax qabsadaan bay doonayaan dad mutacalimiina weeye dhalinyarta faraha laga qaado hala taageero ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak xamse waa maasan yahay haddeertaan waxaa barnaamijka ku soo dhaweynaa macallin maxamed xuseen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhalinyarada martida waayeelka waxgaradka dadweynaha Soomaaliyeed ee caawa meeshan isugu yimid waxaad iga guddoontaan salaan ka soo go'day kashka iyo laabta intaas kadib waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkiisa inuu caafimaad iyo barwaaqo iyo baraare inuu gaarsiiyo insha Allah maanta maalinteeda soo socotana sidan oo kale baynu ciidi doonaa haddaynu caafimaad qabno waliba sidan si ka wanaagsan baynu ciidi doonaa waxaan idin soo diyaarin doonaa riwaayado khatara iyo fanaaniintii qaranka baa idin keeni doonaa kuwa ugu fiican taana ku seexda waa maasantihiin caawa barnaamijku wuxuu isugu jiraa laba qaybood waxaan filahayaa wuu ka yar duwan yahay barnaamijyada kale oo xagga heesaha keliya ah sababtoo ah dee waad la socotaan fanaaniin waaweyn baan yaanu ka codsannay inay nagala soo qaybgalaan xafladdan idinkana marka waxaa laydinka rabaa waxoogaa inaad dulqaad noo yeelataan haddii khudbaduhu idinku dheeraadaan laakiin mar dhow waaban idin kala dhexbaxaynaa idinka iyo fanaaniinta laakiin inta ka horraysa waxaan rabnay bal in waxoogaa la isu sheego oo wax la isfahansiiyo maxaa khaldan maxaa toosan maxaa saxsan in wax layska yidhaahdo ayaa nala aqoonaatay haddii alla yidhaahdo khudbadda iyo waxyaabaha aan rabo dadka inaan u sheego waxaan dhex gelin doonaa marka heesaha lagu caajiso hadhow oo dadkuna intaan ka sii tirabataan baan mar labaad ku soo noqon doonaa laakiin arrinta muhiimka ah ee ay tahay haddaba inaan qayb ka mida idiin sii sheego waxaa weeyaan dhallinyaroy aad baan uga xumahay dhibaatada idinku dhacday waddan baynu lahaan jirnay Soomaaliya la yidhaahdo waxaan u malaynayaa waddankaas cidna inaysan ikhtiyaarkeed uga soo bixin ee dhibaato ayaa nagu kaliftay dhibaatadii dhacdayna saamayn weynba ilaa maanta idinku leedahay waalidiintii way soo qaxeen Yurub bay maadeen way dadaalayaan way idin korinayaan laakiin idinka waxaa la idinka rabaa
inaad abaalkii waalidiintiina inaad la timaadaan waxaa la yidhi nin oday ah baa waxaa la yidhi hal baa u irmaanay isagiyo wiilkiisaa la joogay geela hashii buu lisay wiilkii buu dhiibay wiilkii ma garanin aabbihii inuu qayb reercaan saa wiilkii dhiilkii buu fuugsaday odaygiina gaajaa gubaysa markaasaa wuxuu yidhi wiilkayow saan kugu caanalisay igumaadan hambaynin war dhallinyarow war waalidiintiin waxay idiin sameeyeen iyo dadaalka iyo hadalka amhar iyo habeenka ay idinla taagan yihiin adeerayaalo waxaan idinka rabaa inaad waalidiintiina u abaalguddaan oo waalidiintiina aad dhagaha ka maqashaan oo aad la shaqaysaan oo aad la tashataan oo iyaga aad saaxiibada noqotaan haddii aad sidaas samaysaan waxaan hubaa in khasaaro uu yaraanayo in aysan jiri doonin dhallinyaro nolosha ka dhacda dhallinyaro waxbaran bayda dhallinyaro maalintiina jiifta habeenkiina soo jeeda dhallinyaro isticmaasha mukhaadaraad iyo waxyaabo kale dhallinyaro waalidkiina la shaqeeya waxna barta waxaa dhacday idinka oo sidaa la idin korinayo ayaa marka qaarkood marka waalidku uu ilmihiisa ka yaabo ayaa wuxuu yidhaahdaa bal hooyo ama aabbo bal wax baro bal siyaabo kala duwan in ilmihii loo baro waxaa kale oo aan maanta idinka digayaa 3 waxyaabood bal si fiican dhegaysta 3 waxyaabood maxay yihiin kow bariyahan waxaa aad u soo batay waxa la yidhaahdo dhallinyarada oo aad u isticmaasha mukhaadaraadka iyo sigaarka iyo khamriga iyo wixii lamida waxyaabahaas iska ilaaliya noloshay kharibaan nolosha dhallinyarada kharibaan ha la iska ilaaliyo waxaa kale oo badan waxa loo yaqaana dembiyada waxaa hadda aad u badan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn dhallinyarada Soomaaliyeed oo dembiyada ku lug leh dembiyada aan iska ilaalino inagu haddanu nahay reer Westeros waxaan waddaa nadiif baynu nahay waad ku mahadsantihiin dhammaantiin sababta aad dembiyada Westeros ka dhaca ama gobolka Westmoreland ka dhaca Soomaali badanaa kuma lug laha waxaa kale oo jirta iyada oo waalidiintiin ay ku dadaalayaan oo mustaqbal uu ku sugayo in dhallinyaro Soomaaliyeed ay duufsadaan niman wadaadda ah oo xag jir ah oo dhallinyarada ku yiraahda marka u horeysaba inay duufsadaan oo dabeetana ay u diraan Soomaaliya sida al-shabaab oo kale ay u diraan ama se Daesh loo diro dhallinyarada waxaa dhacday magaalooyinka ay ka midka yihiin Göteborg iyo Örebro dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo la diray oo la duufsaday oo been loo sheegay oo dad siyaasiyiin oo dan leh oo dowladda inay amiirro noqdaan dhallinyarada ku yidhaahda ma jahaad taga ma isqarxisaan ma dagaalantaan oo ani maxaa dagaal iga dar ani dagaal maxaaba iga dar waaba soo baxay reerkaygii baa la joogaa reerkaygii baa gurigayga u shaqaynaya anigii baa shaqaysanaya mustaqbal baan raadinaya marka dadka noocaasa meelo kala duwan bay joogaan iska jira haddii arrimahaas la idinla yimaado iska jira innagu waxaynu ku fiicannahay waxaynu leenahay masaajido fiican iyo culimo fiican oo ilaa iyo hadda wanaag mooyee aynaan wax xumaana ku arkin laakiin dadka dhallinyarada duufsanaya nadkana way ku jiraan meel kastana way joogaan haddaba iska ilaaliya marka arrimaha noocaas la iska ilaaliya maalinta dambe yaa maqal maro hebel ama hebla yaa la dhihin xarab bay joogtaa ama waxay joogtaa waxa la yiraahdo riiki zuur maxaa riiki dimashq iyo shabaab u aaday arrimaha noocaas la iska ilaaliya haddii la idinla yimaado waxaa tiraahdaa wadaayo filimkaas hore u soo galay sheekada aan halay iman hadda jihadayso adiga jihad ama dad meel ay sida aniga muslim baanahay aqeedadan baranaya diinta islaamka baranaya culimadan ku xidhnaanaya muslim caadi aan ahay laakiin afaarahaas ha ila iman sidaas ku dhaha oo hadda sida ay sida wanaagsan ay inoogu socoto deebartaa aynu ka wadno waxbaa weli ii dhiman hadhow baan dib u soo noqon doonaa
ansixin kara